falimaha rasuullada cutubka 19 haddaba waxaa dhacay markii abollos korintos joogay in bawlos oo soo dhex maray waddanka sare yimid efesos oo halkaas wuxuu kula kulmay kuwa xera markaasuu ku yidhi iyagii ruuxa quduuska ma hesheen markaad rumaysateen kolkaasay ku yidhaahdeen maya maba aanu maqlin in ruuxa quduuska ay jiro iyo in kale markaasuu ku yidhi haddaba maxaa laydinku baabtiisay oo waxay ku yidhaahdeen baabtiiskii yooxana bawlosna wuxuu ku yidhi yooxana wuxuu dadka ku baabtiisay baabtiiska toobadda isagoo dadkii ku leh waa inaad rumaysataan kan iga daba iman doona isagoo ula jeeda ciise oo markay waxaas maqleen waxaa iyagii lagu baabtiisay rabbi ciise magiciisa markii bawlos gacmaha dul saarayna ayaa ruuxa quduuska ku soo degay iyagii markaasay afaf kale ku hadleen oo ay wax sii sheegeen nimankii oo dhanna waxay ahaayeen abbaaraha 12 haddaba sunagoga ayuu galay oo meeshaas ayuu 3 bilood geesinimo kaga dhex hadlay isagoo dadka la doodaya oo u soo jeedinaya waxyaalo ku saabsan boqortooyada ilaah laakiin qaarkood markay madax adkaadeen oo caasiyoobeen iyagoo xumaan kaga hadlaya jidka dadkii badnaa hortooda ayuu iyagii ka tegey oo xertii ka soo soocay oo maalin walba ayuu dad kula doodi jiray iskoolka turanos taasuna 2 sannadood ay socotay si dadkii aasiya degganaa oo yuhuud iyo griig balaha ay u wada maqleen ereyga rabbiga ilaana wuxuu gacmaha bawlos ku sameeyey cajaa'ibyo khaasa sidaas aawadeedna waxaa jidhkiisii kuwii bukay looga keenay marooyin yaryar ama macwiso markaasaa cudurradii iyagii daayeen jinniyadiina waa ka baxeen laakiin kuwo yuhuudda wareegi jirtay ka mida oo jinnisaarayaal ah baa waxay ku tala jireen inay kuwii jinniyada qabay ku dul yidhaahdaan magaca rabbi ciise iyagoo leh waxaan idinku dhaarinayaa ciisaha bawlos dadka ku wacdiyo waxaa jiray oo sidaas sameeyey 7 wiil oo iskeeba dhalay kaasoo ah wadaad sare oo yuhuudiya markaasaa jinnigii u jawaabay oo ku yidhi iyagii ciise ayaan garanayaa bawlosna waa naqaan idinkuse yaa tihin haddaba ninkii jinniga qabay baa ku booday iyagii wuuna ka xoog badiyey kulligood oo ka adkaaday sidaas darteed ayay gurigaas ka carareen iyagoo qaawan oo dhaawacan markaasaa waxaa taas wada ogaaday yuhuuddi iyo griigtii oo dhan oo efesos joogtay baqdhinna waa wada gashay dhammaantood magaca rabbi ciisena waa la weyneeyey markaasaa qaar badan oo rumaystay yimaadeen iyagoo qiranaya oo caddaysanaya falimahooda kuwii sixir fali jirayna qaarkood intay kitaabadoodii ururiyeen ayay dadka hortooda ku wada gubeen wayna tiriyeen qiimahooda oo waxay arkeen inay ahayd 50,000 oo googo oo lacaga sidaasaa ereygii rabbigu xoog ugu batay oo u adkaaday haddaba markii waxyaalahaasu dhammaadeen ayaa bawlos ruuxiisa kula tala jiray inuu yeruusaalem tago markuu makedoniya iyo akhaaya sii dhex maray dabadeed isagoo leh markaan meeshaas tago dabadeed waa inaan rooman arko markaasuu wuxuu makedoniya u diray 2 ka mida kuwii isaga u adeegi jiray oo ahaa timoteyos iyo erastos isaga qudhuususe wuxuu ku hadhay aasiya intii muddaa haddaba waxaa wakhtigaas kacday rabshad aan yarayn oo ku saabsan jidka maxaa yeelay ninkoo demetriyos la odhan jiray oo lacagtumaha oo macbudiyo yaryar oo diyaana lacag ka samayn jiray wuxuu sancaawiyadii u keeni jiray faa'iido aan yarayn kuwaasoo uu isla soo ururiyey raggii la shuqulaa isagoo ku leh niman yahow waad og tihiin inaynu shuqulkan ka helayno hodantinimadeenna waxaad arkaysaan oo aad maqlaysaan in bawloskanu sababay oo jeediyey dad badan oo aan kuwii efesos oo keliya ahayn
laakiin kuwii joogay aasiya badidood isagoo leh ilaahyo gacmo lagu sameeyo ilaahyo maaha khatar uma aha shuqulkeenna oo keliya in la quursado laakiin waxay khatar u tahay oo kale in macbudka ilaahadda weyn ee diyaana la fududaysto weynaanteedana laga baabi'iyo taasoo aasiya oo dhan iyo duniduba ay wada caabudaan oo markay taas maqleen aad bay u cadhoodeen wayna dhawaaqeen iyagoo leh waxaa weyn diyaanada reer efesos magaaladii oo dhammuna waa wada qasnayd waxayna qabsadeen gayos iyo aristarkhos oo ahaa niman reer makedoniya oo la socdaali jiray bawlos markaasay iyagoo isku wada qalbiga tiyaatarradii ku yaaceen kolkii bawlos damcay inuu dadkii dhex galo xertii uma ay oggolaan isagii haddaba qaar ka mida madaxda aasiya oo saaxiibbo u ahaa isagii ayaa u soo cid diray oo waxay ka baryeen inuusan isku biimayn tiyaatarradii haddaba qaar waxbay ku qayliyeen qaar kalena wax kalay ku qayliyeen maxaa yeelay ururkii waa qasnaa badidooduna ma ay garanayn waxay isugu yimaadeen markaasay aleksandaros ka soo saareen dadkii badnaa isagoo ay yuhuuddii hore u soo tuurayaan markaasaa aleksandaros gacan taagay oo wuxuu damci lahaa inuu af ku difaaco dadka hortiisa laakiin kolkay garteen inuu yuhuudi yahay ayay dhammaan intii 2 saacadooda isku cood ku qayliyeen iyagoo leh waxaa weyn diyaanada reer efesos markuu karraanigii magaaladu aamusiiyey dadkii badnaa ayuu ku yidhi nimankaynan reer efesosow ninkiinee baan aqoon in magaalada efesos ay tahay ta ilaalisa macbudka diyaanada weyn iyo sanamkii yubiter ka soo dhacay waxyaalahaasu waa wax aan la dafiri karin sidaas daraaddeed waxaan idinku waajiba inaad xasiloonaataan oo aydnaan samayn wax qamaam ah waayo waxaad halkan keenteen nimankan iyagoo aan ahayn kuwo macbudyo dhaca ama kuwo caaya ilaahyadeenna sidaas daraaddeed haddii demetriyos iyo kuwa la shuqula ay nin wax ku haystaan maxkamaduhu waa furan yihiin xaakinnuna waa jiraan haddaba hays dacweeyaan laakiin haddii aad doonaysaan wax ku saabsan axwaal kale waxaa lagu gargoyn doonaa ururkii sharciga haddaba waxaa khatar inoona in laynagu ashkateeyo rabshaddii maanta aawadeed iyadoo aan sababu u jirin taasoo aynan kari doonin inaynu wax ka sheegno buuqan oo goortuu waxyaalahaas ku hadlay dabadeed ayuu ururkii kala diray